haddii aad Jarmalka ku nooshahay waxaa suuragal ah inaadan dadaal badan ku bixinin ama aadan muhiim u arkin inaad barato af Jarmalka ugu yaraan heer ku filan noloshaada maalinlaha ah iyo yoolka mustaqbalka ee horumarkaaga. haddaba halkan waxaan kugu soo gudbinayaa 10 sababood oo kugu dhiirigelin karta inaad barato luqadda Jarmalka isla markaana aad dadaal badan ku bixiso. haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan adoo mahadsan subscribe dheh gambaleelkana furo si muuqaalada dambe lagu soo ogeysiiyo marka la soo geliyo. haddii aan sababta ugu horeysa ku bilowno qasab ahaanshaha barashada luqadda ama isdhexgalka. dadka cusub ee muhaajiriinta ah waxaa qasab ku ah inay ka qayb galaan koorsada isdhexgalka integrations course haddii aysan awood u lahayn inay ku hadlaan heerka ugu fudud ee xiriirka. xafiiska waaxda socdaalka ama ajaanibta ee Auslanda Bihood ayaa go'aan ka gaaraya ka qaybgalka isdhexgalka ee qofka. haddii qofka cusub uu ceyr qaato ama lacag sooshyaal ah waa ku waajib isdhexgalka, waxaana heshiiska qaybgalka la saxiixanaya hay'adda uu lacagta ka qaato sida job centerka ama socialka. hay'adda ayaana kula xisaabtamaysa. dadka Jarmalka soo galay wixii ka dambeeyay 1 January ee sanadkii 2005 waxay xaq u leeyihiin inay dalbadaan ka qaybgalka luqadda hal mar iyo mar kale oo ku celin ah haddii aanay gudbin imtixaanka B1-ka. muhaajiriinta cusub waa laga dhaafi karaa waajib ahaanshaha ka qaybgalka koorsada isdhexgalka haddii ay jirto sabab macquul ah oo u diideysa inuu xaadiro sida shaqo ama howl sharafeed, tusaale adeega mutadawacnimada ee federaalka Bundesfreiwilligendienst oo bufdi loo soo gaabiyo. sidoo kale qofka haddii aasaasi ama aqoon aasaasi u leeyahay luqadda waa laga dhaafi karaa. 2 xiriirka nolosha maalinlaha ah. haddii aad Jarmalka ku nooshahay muddo oo luqadda aasaasiga ah aadan aqoonin, dabcan si weyn baad u dareensan tahay baahida ay leedahay inaad horumariso luqaddaada. xiriirka dadku waa u muhiim is-afgarashada. Jarmalka balamaha xafiisyada dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay, dhaqaatiirta noocyadooda kala duwan, haddii aad waalid tahay, xanaanada carruurta iyo iskuulada dhammaan waxaad u baahan tahay inaad luqad aasaasi ah taqaano haddii aad u baahan tahay inaad si hagaagsan ula xiriirto, ula macaamisho oo aad caafimaadkaaga, baahidaada ama walaacaaga si faahfaahsan oo la fahmi karo ugu gudbiso. way xanuun badan tahay in maalin kasta aad qof tuugto si uu meel kuugu kaxeeyo ama kaaga soo turjumo. qof kasta dan iyo howl ayuu leeyahay u gaar ah, wayna yar tahay in qofka uu shaqadiisa, waxbarashadiisa ama dantiisa gaarka ah uu kaaga soo tago si uu dantaada kuugu dhameeyo. sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad qofka ugu carooto sababta uu kuu caawin waaye ama kuugu turjumi waaye adigoon eegin ama weydiinin firaaqadiisa, howlihiisa gaarka ah iyo shaqadiisa. sababta saddexaad waa kordhinta ama cusboonaysiinta deganaanshaha. si lagugu kordhiyo deganaanshaha ayaa noqon karta sabab kale oo aad u barato af Jarmalka. haddii aad haysato deganaansho aan joogto ahayn ama sharciga waqtiga cayiman leh, waaxda socdaalka ama ajaanibta way kuu diidi karaan inay kuu kordhiyaan haddii aadan ka soo bixin waajibaadkii laga rabay, sida barashada luqadda, inaadan shaqaysan iyo inaad dambi ay maxkamadii xukuntay gashay. laakiin inta badan sidaas ma sameeyaan. xaq ayay u leeyihiin dabcan, sabab ay kuugu diidaanna way noqon kartaa. sida aan qodobkii ugu horreeyay ku soo sheegnay, haddii koorsada isdhexgalka ay ahayd waajib laga rabo oo lagu siiyo deganaansho sanad ah, waxay ka dhigan tahay in fursad 12 bilood ah lagu siiyey inaad isdhexgalka samayso. haddii kalena aad si kale u cadeyso inaad isdhexgal samaysay, sida shaqo ama howl sharafeed. haddii intaasba aad ku guuldaraysato, 100% ha ku kalsoonaan in sharciga lagu cusboonaysiiyo. haddii aan tusaale ku siiyo, dadka yimid wixii ka dambeeyay 2005 bishii January waa qasab inay booqdaan koorsada isdhexgalka. waajibnimada waa laga deyn karaa haddii uu shaqo tago qofka ama waxbarasho galo. laakiin haddii uusan tagin, sabab uu ugu harayna aysan jirin, waxaa loo aqoonsanayaa inuu waajibkiisii ka soo bixi waayey. Auslanda Bihoodaha way u diidi karaan sharciga. haddii aad tixraac u baahan tahay, akhriso qodobka 44 sharciga deganaanshaha ama Aufenthaltsgesetz iyo qodobka 8 ee kordhinta sharciga ama deganaanshaha Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis. 4 qaadashada deganaanshaha joogtada ah ee abadiyada. caadiyan deganaanshaha abadiyada waxaa lagu qaataa muddo 5 sano ah, laakiin shuruudaha marnaba kama marna inaad ugu yaraan aqoon aasaasi ah ka haysato luqadda Jarmalka, ugu yaraan heerka A2 ama A2. haddii sharciga qaxootiga aad haysato muddo 3 sano ah gudahood ayaad ku xareysan kartaa deganaanshaha abadiyada haddii aad barashada luqadda heerka C1 ka gaartid ama C1. sidoo kale deganaanshaha kale xitaa waa suuragal heerka isdhexgalka iyo luqadda inuu kuu fududeeyo waxyaabo badan. qodobka 5 ama sababta 5 waxa weeye dhalashada Jarmalka. marka qofka uu dalkan joogo muddo aan ka yarayn 8 sano ee uu buuxiyo shuruudaha ay ka mid yihiin shaqada ama in qofku noloshiisa dabro, caymiska bulshada uu bixiyo, isla markaana haysto deganaanshaha joogtada ah iyo shuruudaha la midka ah, waxa kale oo ku waajibaya muhiimna ah
waa inuu luqadda dalkan yaqaano, haystana caddayn heerka B1 ama B1 ee dhexe. waa shuruud ka mid ah shuruudaha lagaa doonayo marka aad codsanayso, aad bayna muhiim u tahay. waana sabab kale oo ay tahay inaad u barato luqadda Jarmalka haddii aad doonayso inaad waddanka ku noolaato muddo dheer. sababta lixaad waa in qofku uu barto xirfad farsamo. in qofku xirfad leeyahay waxay ka caawinaysaa inuu shaqooyin fiican ama dhaqaale fiican leh uu helo. Jarmalka haddii qofka uu doonayo inuu xirfad barto Ausbildung, waxa ugu horeeya ee ku waajibaya waa luqadda iyo waxbarasho nidaami ah ama iskuul. waxaase ugu muhiimsan in qofku luqadda yaqaano. heerka ugu hooseeya ee qofka lagu xiro waa B1 ama B1, inkastoo in badan dadka lagu xiro heerka B2 ama B5. baahida loo qabo dad xirfad la baro oo shirkadaha qaar ay qabaan ayaa suuragal ah in dadka qaar ay nasiib u yeeshaan in shuruudaha luqadda iyo waxbarashada laga daayo, laakiin ma badna. ee ku fikir inaad sare u qaaddo luqaddaada. Jarmalka aad bay u badan yihiin boosaska bannaan ee dadka la doonayo in fursad xirfad barasho la siiyo, laakiin sanad kasta kumanaan boos ayaa loo waayaa dad buuxiya sabab la xiriira shuruudaha oo aan la buuxinin, haba uga badnaato luqadda oo aysan dadka ajaanibta ah xoogga saarin. 7. waa suuqa shaqada. Jarmalka waa dalka ugu dhaqaalaha badan Yurub, warshado iyo wax soo saar badan ayuu dalkan qani ku yahay. waxaa ku yaala qaar ka tirsan shirkadaha ugu horeeya dunida ee gawaarida soo saarta. 77% dadku waa ay shaqeeyaan. sidaas darteed fursadaha shaqo aad ayay u badan yihiin dalkan. si qofku uu uga faa'iideysto fursadaha, waxaa muhiim ah in ugu yaraan uu yaqaano luqadda, isla markaana uu si wanaagsan ugula xiriiri karo dadka ay shaqo wadaagta yihiin ama shaqo bixiyaha. waxaa suuragal ah in dad badan oo ka shaqeeya meelo kala duwan oo Jarmalka ah inay iska dhaadhiciyeen inaanay luqad waxba uga baahnayn. waxaase xaqiiq ah in luqaddu muhiim u tahay shaqo wanaagga, xiriirka iyo horay u socodka. haddii aadan aqoon luqad kugu filan, waxaa suuragal ah in lagu doodsiiyo xuquuq badan oo aad lahayd, inaad ogolaato waxyaabo aad afkaaga isaga joojin kartay, iyo xadgudubyo kale oo shakhsi ah. qodobka 8 waa Jarmalka inuu yahay luqadda labaad ee Yurub. haddii aad af Jarmal ku hadasho, waxaa suuragal ah inuu kaa anfaco dalal Jarmalka ka baxsan oo Yurub ka tirsan. af Jarmalku wuxuu kaalinta labaad kaga jiraa luqadaha dadka ugu badan ee u dhashay ay ku hadlaan qaaradda Yurub. 95 milyan oo qof ayaa Yurub ku hadasha af Jarmalka, kuwaas oo uu afka u yahay midka hooyo. wuxuu luqadda kaliya ee lagu hadlo uu ka yahay dalalka Germany, Austria, Liechtenstein, halka luqadda rasmiga ah ee lagu lamaanan yahay uu ka yahay Switzerland, Belgium iyo Luxembourg. luqadda lagu lamaanan yahay waxaan kala jeedaa in dalalkaas ay leeyihiin luqado rasmi ah oo hal ka badan. kaliya dalka Ruushka oo 120 milyan oo qof ay ku hadlaan ayaa ka badan dadka ku hadla afka hooyo ee Yurubiyaanka ah. ma ogsoon tahay in af Jarmalku uu yahay luqadda labaad ee aadka loo fahmo qaaradda Yurub marka laga soo tago Ingiriiska? haa, waa isaga. sababtu waa in afka uu dalal badan oo Yurub ah caan ka yahay. dalalka soo socda wuxuu af Jarmalka ka yahay luqadda labaad ee ugu caansan, saddexaad ama afraad: Denmark, Holland, Slovenia, Sweden, Poland, Finland, Hungary iyo wadamo kale. waa suuragal inaad isweydiinayso sidee ku dhici kartaa. hagaag, dadka Yurubiyaanka ah waa isdhex degaan. sidaas darteed waxaa jira dad aad u tiro badan oo dalalka aan soo sheegnay ah oo afka Jarmalka ku hadla ama yaqaana. tiradooda lama yaqaano. waxaase la qiyaasaa in luqadda Jarmalka dadka fahma inay ku soo xigaan dadka af Ingiriiska fahma qaaradda oo dhan. sidoo kale luqadda Jarmalka waxaa lagu tilmaamaa inay tahay luqadda filosofiyada iyo mufakiriinta. waa luqadda labaad ee loo isticmaalo sayniska. 9. luqadda Jarmalka xirfad ahaan ayaad u isticmaali kartaa. marka laga soo tago in luqadda oo aad barato ay noloshaada gaarka ah kuu faa'iideynayso, waxaa sidoo kale ka dhigan kartaa xirfad aad ku shaqaysato, dadka kalena ku caawiso. tirada Soomaalida ee turjubaannimada ku shaqaysata way yar tahay, baahi badan oo dhinacaas ahna way jirtaa. haddii aad luqadda si fiican u barato, waxaa suuragal ah inaad u shaqaysato si madax bannaan, dhaqaale badanna uu ku soo galo. qodobka ugu dambeeya ama sababta ugu dambeysa ee 10aadna waa badweyn xogaha internetka ee lagu heli karo af Jarmalka. internetka waxa uu qayb ka noqonayaa nolosha aadanaha ee qarnigan. 4.5 bilyan oo qof ayaa internetka isticmaasha dunida oo dhan. domainka ama gadalgalaha internetka ee .de ama .de ee Jarmalka waa kan saddexaad marka laga soo tago domainada .com oo caalamka iyo Mareykankaba aad looga isticmaalo, iyo .ru oo Ruushka uu leeyahay. 92 milyan oo qof in ka badan oo ah dadka ku hadla af Jarmalka ayaa si firfircoon u adeegsata internetka, sida lagu sheegay qiimeyn sanadkii hore la sameeyay, kaas oo uu sameeyay bogga internetka ee internetworldstats.com. haddii aad af Jarmal taqaano, waxaad awood u helaysaa inaad booqato kumanaan bog oo internetka ah oo aad ka heli karto xogo kala duwan oo baahidaada gaarka ah ee aqoonta iyo ogaalkaba leh. daawade,
waa su'aale ma jirtaa sabab kale oo ay tahay inaad af Jarmalka u barato haddii aad Jarmalka ku nooshahay ama kugu qasabtay inaad barato qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag waad ku mahadsan tahay daawashada haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe caafimaad baan kuu rajaynayaa nabadgal